wafdi ka socday xafiiska gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa gaaray magaalada Gaalkacyo iyagoo qiimeyn ku sameynaya sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmadka abaaraha. Wariyahayaga Cabdinaasir Maxamed Cali ayaa warkan inooga soo diray Gaalkacyo. wafdi ay hogaaminaysay Saciido Shaaciye oo xubno ka ah xafiiska gudoomiyaha gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa Gaalkacyo soo gaaray ka qayb qaadashada gurmadka abaaraha. Saciido Shaaciye wafdigeeda ayaa booqday kaamamka barakacayaasha ee Gaalkacyo iyo tuulooyinka hoos yimaada degmada, kulana la qaatay haweenka gobolka si loo ogaado baahiyaha ugu muhiimsan ee dadka abaaraysan. Aduqa degmada Gaalkacyo Maxamuud Yaasiin Tumey ayaa sharaxay ujeedka safarka Saciido Shaaciye iyo wafdiga ay hogaaminayso. wafdi ay hogaaminaysa Saciido Shaaciye oo ah kabinetka gudoomiyaha gobolka Minnesota iyo saaxiibadeed oo ay horkacayso oo dhammaantood waxa ka socdaan dowladda Mareykanka iyo shacabka Mareykanka ka socdaan waxay u yimaadeen arinta abaaraha dadka Soomaaliyeed oo ay saameysay inay indhahoodana ku soo arkaan waxa xaqiiqdaana ay qaadaan waxay soo arkeen ay qaadaan kana qaylo geeyaan waxay hore ula soo kulmeen hay'ado kala duwan si ay uga qayb qaataan baahida abaareed ee maanta jirta. dhinaca kale Saciido Shaaciye ayaa sheegtay in ay u yimaadeen ogaanshaha xaaladaha dadka abaaraysan ayna keeni doonaan 5 hay'adood oo ay kala hadleen gurmadka dadka ku cayroobay abaaraha. runtii waxaa maanta halkaana keenay oo ilaa intaas aan usoo tilaabay waxaa jirtay arrimo aad u fara badan oo aniga i taabtay si shakhsiyan i taabtay arrimahaas oo ay ka mid yihiin baahida maalin walba wadankayga haysata, ilmaha dhimanaya, TV-yada anaga xaq waxa laga soo daayaa waxa aynan damiirtiinu hada aragtaan aan caadi ahayn. marka ilaa 5 hay'ad baan la hadalaa ala taqriiban hay'adahaas hadaan qaar ka taabto waxa kamid ah Feed My Starving Children mid la yiraahdo waxaa jirta hay'ad ilaa 7 milyan ay soo hoosgalaan oo la yiraahdo One Campaign adig xataa waa fiirin kartaan World Vision. marka ilaa 5 hay'ad oo kala duwan ayay ahaayeen. hay'adihii markaan la hadalay waxay nagu yiraahdeen waxaan u la'nahay oo u baahanahay warbixin caam ah oo wacyiga meesha ka jira inta uu tiro leeyahay noo soo ogaada oo soo duuba haddii aad haysaana waa kaasa. marka sidaas darteed ayaa waxaan jeclaystay in aan imaado oo aan arko wacyiga meesha ka jira baahida intay la eg tahay. ugu dambeynna haweenka gobolka Mudug ayaa u mahadceliyay wafdiga Saciido Shaaciye kana hadlay duruufaha abaareed ee ka jira gobolka Mudug ee Puntland. abaaruhu waxa weeye dhibaatada ay keeneen wax maanta qarsoon ma ahan, khaasatan gaar ahaan markii la fiiriyo waxay gaar u saameysay inta u nugul dhibta oo aan maaragtay xamili karinin sida maxay hayto hooyada iyo dhalaanka iyo dadka waayeelka. gabdhaha Eurobooyin dalkooda u ooyayaan ayadoo urugaysan diyaarad bay ku eegayaan kuweena maxaa irdheeyo indhaha ka riday. waxaan in weydiinaynaa wax dalkiina iyo dadkiina in ka qariyay yaan in weydiinaynaa oo caruurta aad dhali ka dheen dalkiina u ooyayaan oo wafti u soo hogaaminay. Cabdinaasir Maxamed Cali, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Gaalkacyo.